u jeclaadaan dalkooda. baraha bulshada gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda waxaa dad badani ka hadlayeen oohinta Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay shir lagu qabtay magaalada Muqdisho. khudbad uu kula hadlayay guud ahaan Soomaalida gaar ahaan dadkii ka qayb galayay shirka ayuu su'aalo uga jawaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya, balse dareenka shacabka ayay soo jiidatay kadib markii la maqlay Xamse oo oohin afka jabsaday. Qira Jabaan kasbasho dareenka bulshada, oohin been ah oo la iska keenayo ama dareen run ah oo uu ka qaaday xaaladda uu ka hadlayo ay ku tilmaameen dadkii ka falceliyay. balse warbixintan ugama hadlayo waxa ay dhab ahaan ahayd oohinta mas'uulku. waxaan si rabaa in muuqaalkan aan idinkula wadaago mas'uuliyiin iyaga oo khudbeynaya oohin afka labadii yaray बर्तन साफ करना halkaas oo qaarkood ay la ooyeen dadkii goobta ku sugnaa. tira ahaan waa ay badan yihiin hogaamiyaasha masraxa ka muujiyay dareenkooda, waxaase jira qaarkood ay baroortooda warbaahinta caalamku tabisay. maadaama ay dumarku ka naxariis badan yihiin ragga, waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan hogaamiyaal tira beel haween ah oo khudbadahoodii ku dhex qiirooday kadibna oohin jabsaday. waxaanse si gaar ah diiradda u saaraya mas'uuliyiinta ragga ah ee masraxa ka hor ooyay. Narendra Modi, ra'iisul wasaaraha India, waxaa la rumaysan yahay in uu yahay aabbaha oohinta iyo qiirada ee mikrofoonka hortiisa, sida lagu qoray wargeyska The Print iyo qaar kale oo ka mid ah warbaahinta ugu waaweyn caalamka. Modi waxa uu ku dhex ooyay munaasabado dhowr ah. marka la soo koobo sababaha oohinta ra'iisul wasaaraha India, waxa ay ahaayeen mar uu ka hadlayay hooyada isaga dhashay oo arrinta dareenka waalidnimadu uu ku qasbay in oohinta uu cishan waayo. ra'iisul wasaare Modi ayaa sidoo kale ooyay 3 jeer intii lagu guda jiray kulankii xisbiga ee 2017 kadib markii xisbigiisa la yiraahdo BJP uu ku guuleystay markii 6aad oo toos ah doorashada golaha sharci dejinta ee maamulka Gujarat. markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha India Modi uu meel fagaaraha ka ooyana waxay ahayd bishii May 2014 kulankii baarlamaanka oo halkaas isaga loogu doortay inuu noqdo hogaamiyaha baarlamaanka ee xisbiga. sababta oohintaasi waxaa loo tiriyay in ay la xiriirtay dadaalkii iyo waqtigii adkaa ee ololaha doorashada ay ku bixiyeen. ra'iisul wasaaraha Hindiya oo xafiiska jooga laga soo bilaabo 2014 ayaa ugu yaraan 4 jeer dadka hortooda ku barortay, waxaana loo arkaa aabbaha shucuurta iyo oohinta ee warbaahinta hortooda iyo khudbadaha goobaha fagaaraha uu ka jeediyo. mas'uulka labaad ee oohinta caanka ku ah waa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama. Obama ayaa si weyn loogu xusuustaa khudbad uu jeediyay 5 Janaayo 2016 markii uu ku dhawaaqay tallaabooyin sharci oo lagula dagaallamayo hubka. xilligaasi oo uu ka hadlayay qisooyin xanuun badan, gaar ahaan xasuusta carruurtii ku naf waayay goobaha waxbarashada, sida xasuuqa la yiraahdo toogashadii ka dhacday iskuulka la yiraahdo Sandy Hook Elementary. intii uu ka hadlayay arrimahaasi ayaa indhihiisa ilmadu ka soo muuqatay, waxaana uu u muuqday in uu codkiisu gaabtay, isla markaasina waxaa xusuusta iyo murugadu ay ku qasabtay inuu muujiyo inuu ka xun yahay waxa ku dhacay carruurtaasi, gaar ahaan markii uu tilmaamayay in ay yihiin first grades oo aanay cadaalad heli karin. qof kasta ma rumaysan karin in oohintaasi ay ahayd keliya astaan siyaasadeed. dadka qaar ayaa waxay u arkayeen in ay ahayd muujin dareen bini'aadanimo oo ay ka dambeysay xanuun dhab ah oo madaxweyne Obama uu dareemayay xilligaasi. marka la joogo dhanka haweenka, waa tirabeel tobaneeye ayayna kor u dhaafayaan haweenka xilalka hayay iyo qaarka siyaasiyiinta ah ee mikrofoonka hortiisa ka barortay. warbixin gaar ah ayaynu ku dul istaagi doonaa. halkaas ayaanan kusoo koobayaa sheekadan oo aan diiradda ku saarayay madaxda mikrofoonka hortooda ka barortay.